بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan sii wadi doonaa cashirkii exercise aan ka shaqeyn doonay oo ku saabsanaa macnaha rational and irrational numbers haddii ilaahay idmo waxaan ka shaqeyn doonaa exercisekan aan ka bilaabi doonaa waxa waaye 25 oo xiid ku jirto su-aashana la weydiiyey waxay tahay determine whether each of the following numbers is a rational or irrational number. If it's rational معناها هذا تهاي determine مية معناها determine مية مثلا معناها is repeating number ومعناها decimal marka hadii lahayd waxaan go'aan ku daari doonaa ma rational miya mise irrational waaye hadii rational tahay mعناها repeating miya mise waa determine waaye mعناها determine waxaa la wadaa mid isku go'an oo aan sii soconin repeating waa tiro oo soo noqonayso mعناها pattern soo noqonaya hadii lahayd okay laatishan hadaan ognahay waxaan ognahay xawaa hadii xidka laga bixiyo waa jawaabtu xawaa 5 waaye maadaama square root ay ka soo baxday waxaan leenahay macnaha waa rational number jawaabtu xawaa waa rational number b sida ognahay waa jajab macnaha fraction waaye fraction ka macnaha sida ognahay waa rational numbers hadii la idmo fraction markuu san yahay waxaa la isku dayaa in sida ugu hooseyso macnaha inta ugu hooseyso isu qaybin karto in la isu qaybiyo saaran 33 wax qaybiyo 9 na qaybiyo maxaa waaye 33 waxa qaybiyo 3 9 3 qaybiso laba dhinac 3 wax qaybiyo afar daan ma qaybin hoos korna ma qaybiso jajab soo gal kale oo kor hoos galay macnaha waa si adkaan xisaabta marka waxa la xisaab aan jajab si galin oo qaybiska ugu dambeeya ah okay waxaan la markii saddex la dhinac qoylna inta daan saddex u qaybino saddex hadii loo qaybo waa 12 saddex hadii loo qaybino waxa intaas soo wareey saddex marka waxa soo wareeyay 12 loo qaybiyo saddex 12 saddex loo qaybiyo hadii aan calculator-ka adeegsano waxay noqonaysaa jawaabta 3.6 soo noqonayso marka waxaan leenahay jawaabta xawaaye 3.6 oo soo noqonayso rixda macnaha marka xawaa jawaabta xawaaye waa repeating decimal waa macnaha waa rational repeating decimal waa macnaha c hadaan soo qaadano c waxa 12 xid ku jirto 12 sida ognahay macnaha waa number prime number waxaa laga wadaa macnaha numberka aan tira kale u qaybsamin oo hal iyo asaga isu qaybsan waxa la prime number salaha marka sidaas daraadeed macnaha ma sii fuday karno sidaan u ahaanaya marka tusaale ahaan hadaan calculator-ka adeegsano jawaabto macnaha waxay noqonaysaa hadii aan xid ka bixino macnaha 12 waxay noqonaysaa 3 dhibic 3 24 معناها numberkan waa irrational number sababtoo ah macnaha repeating ma aha macnaha determine ma mid ugaamino mid iska soconayo ilaa iyo marka jawaabta waxaan leenahay waaye 12 oo xid ku jirto waxaan leenahay waa irrational number irrational decimal yes insha Allah waxaan noogu xigo d waxa waaye 17 loo qaybiyo 34 marka ugu horeyso waa fraction macnaha waa jajab aan ka wadaa waa jajab waa rational numbers haduu yahay macnaha waxaan ka fiirinaa irrational miya mise waa rational marka labadaba noqon kara hadii marka aan fiirinaa 17 wax qaybiyo oo 34 na qaybiyo maxaa waaye okay ha hoos barbiyo 17 hadaan 17 u qaybino waa hal waaye waxaan raadinaa wax kor u qaybsamo hoos u qaybsamo oo ugu yar marka waxaan noo fuu 17 hadaan u qaybino 17 hal waaye 17 34 u qaybsata marka waa labo marka jawaabtu waxa waaye 0.5
marka waxaan leenahay kow waa rational number laba waa terminating decimal oo macnaha kow waa rational jawaabta waxaa waaye terminating decimal insha allah good waxaa noo haray waxay noola mid tahay la yidhi 0.3033 waxaan u jeednaa macnaha 0 waan macnaha 3 eber haddaan double oo noqday haddana triple oo noqday macnaha saddexana sii saacidaysa markasta marka macnaha repeatana ma aha oo waa mid iska sii soconayo terminatorna ma aha marka waxaa leenahay waa irrational number yes waxaan ku joojinaa hantan jawaabta halaas waa insha